weydiisay waxay leedahay assalaamu calaykum sheekh maxamed su-aasheeda waxaa weeyaan sheekh nin ayaan isqabnay waxaan u dhalay 3 caruur ah kadibna waan kala tagnay oo mid kale ayaan guursaday haddana kii hore ayaan la galmooday asagoo kii dambe iqabo marka muxuu yahay xukunkayga sheekhow ii jawaab xukunkaagu adigu waad garanaysaa maxaa naga weydiinay islaan gogol dhaaftay baa tahay oo gogashii ninkeeda wasakhaysay oo ilaahay dembi ka gashay sidaas daraaddeed toobadkeen oo ilaahay u toobadkeen ilaahay dembi dhaaf weydiiso waxaad samaysayna ka toobadkeen dembi aad u culus weeye waxaa kala duwan haweeney aan nin lahayn oo bannaanka ka sinaysay haweeney aan nin lahayn oo xumaan ku dhacday iyo haweeney nin leh oo guri leh oo iyadoo nin qabo xumaan samaysay way kala duwan yihiin ilaahay agtiisa laba dembi oo kale zinadaas ii kala weyn haddana waxaa ka sii weyn markay zinadu dhacdo dariska markay ku dhacdo way ka sii culus tahay oo ninka dariska la xaaskiisa uu faraxumeeyo ama muxuu ahaayey dariska dhexdiisa ay ka dhexdhacdo way ka sii weyn tahay sida nebigu tilmaamay sala allahu calayh waali wasalam dembigu waa culus ee aad gashay laakiin ilaahay la imow wallahu aclam gabadh baa waxay tidhi oo iyaga u tagtay waxaan wada soconnay wiil kadib waxaa ina dhex maray gogol dhaaf zino waxaan hadda ogaaday inaan leeyahay uur 10 cisho ah wiilkii wuxuu igu yidhi aan isxalaashanno maadaama waxay leedahay gabadhani maadaama ilmahani caloosha galay ay ku galeen si khalad ah suuragal ma tahay inaan iska soo xaaqo maadaama ay yihiin 10 cisho oo keliya ilaahayna aan uga toobad keeno mana rabo inay calooshayda ku jiraan ilmo zina ah haddii aan rabno inaan hadda isxalaashanana haddii aan rabno inaan hadda si xalaal ah isu guursanno ma isu guursan karnaa jazaaka allahu khayran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ربي يسر ولا تعسر سؤاشاس waxay tilmaamaysaa runtii natiijada xun ee khalaad ee aakhariya adduunba qabsanaysa ruuxa ku fududaada zinada ceeb adduunka ah iyo aakharoo laga yaabo in loo ciqaabo saas daraaddeed in aad looga fogaado zinada iyo asbaabta keenaysa ayay darsi u tahay oon ka faa'iidaysanayna qodobka labaad ilmuhu haddii uu uurka galo oo xayawaanka manida la socda iyo ukunta hooyo ay isgaadhaan oo isla falgalaan inaan la soo ridi karin marxaladuu dooni ha joogo bilow ha ahaado dhexda ha maro nafta ha lagu afuufo inaan la soo ridi karin marxalana ayaa wuxuu yahay madhabka jumhuur ahlilcilmi ama culimmada badankood ay qabaan maalikiyada xanafiyada qaar ka mida shaaficiyada a'immadooda rag ka mida maraya sida alimaam alghazali ibn xajar alhaytami alimaam alciz ibn cabdisalaam iyo xanaabilada a'immadooda qaar ka midana saasay rajaxayaan sida alimaam ibnu rajab ibnu ljawsi sheekh islaam ibnu taymiya waana madhabka ahlu daahirka ama daahiriyada bimacnaa xataa 40 beri inta ka horaysa 10 beriya u horaysa wakhtiguu doonay ha ahaadee inaan la soo ridi karin ayay culimmadaasi qabaan waana sida saxdaa wey waxaa kaloo sidaa qaba hay-atu kibaar alculamaa المملكة العربية السعودية علماء السعودية waxaana adilada loo daliishado intaan arkay ila fiican xadiidka fi saxiix muslim ku yaala
nebiga sal alla alay wasalam waxaa la weydiiyey casligu waa in biyuhuba intaynan gaadhin hooyada minkeeda in xubinka taranka la soo saaro bannaanka biyaha lagu daadiyo. taasaa nebiga la weydiiyey sal alla alay wasalam isagoo ruuxu markaa ka cararaya inuu ilmuhu uur galo. nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi dalika alwa'du alkhafi, waa xabaalnololin qarsoon, yacni waa ilmo la dilay si qarsoodi ah, tiyoo yaro qarsoon waaye. ayib, haddii biyihii aan oo weli ukunta hooye la falgelin bannaanka in lagu daadiyo uu nebigu ku tilmaamay sal alla alay wasalam inay tahay xabaalnololin qarsoon, biyihii oo ukuntii la falgalay oo abuurkii bilowday soo rididdiisa way ka sii xag jirtaa. maxaa yeele markaa hore ismaba gaadhinba waa biyo keligood. arrintaasi marka waxay tilmaamaysaa aadamuhu midda kale dhakhaatiirtu waxay ihbaatinayaan oo isla ogol yihiin kulanka biyaha iyo ukuntu haddiiba usbuuc ka soo wareego. jaa waa bilowday markaasba samaysankii waa bilowday, laakiin waa qarsoonye. saas daraaddeed sida raajixa xoogga badan waxa weeyaan inaan la soo ridi karin ilmaha uurka ku jira maraaxisha ka mida, ama bilow ha ahaado ama dhexda ama ay marxalo min maraaxil. saasaa xoog badan. taa waa taas. saas daraaddeed ruuxa zinada ku dhacay sida gabadhaas oo kale oo ilmo uurkeeda u galay in haddana lagu daro in la dilo la soo rido waa dembi, haddana dembi kale lagu saxayo waa. saas daraaddeed arrintaasi ma bannaana. kow, su-aasha waxaa ka mid a iyadoo uur leh oo ilmihii uurkeeda ku jiro ma la guurin karaa oo ninkii ma isguursan karaanoo siday soomaalidu tidhaahdo ma la ysku ceeb asturi karaa? taana iyadana nikaaxaasi inuusan asaxaynin ilaa ay uurka zinadaa umusho waa madhabka imaam maalik, thawri, isxaaq ibnu rahwiya, abu yuusuf, alimaamu alawsaaci. culimmadaasi waxay qabaan haweenta uurka zinada ah leh ee xambaarsan ilaa ay umusho inaan la guurin karin, laa kii ka zinaystay inaan loo guurin karin walaa ku kale inaan loo guurin karin. iyadana waa sida xooga badan, waase masale khilaafiya oo imaamu shaafici iyo culimaa qabta in guurku uu guntamayo. taana waa midda. amaa markay umusho kadib oo ilmuhu bannaanka yimaado ama iskiiba u dhinto oo laga yaabo inuuba uurka ku dhinto markii caloosheedu bannaanaato kadib ma isguursan karaan? jawaabtu waa haa. cinda aljumhuur guurkoodu waa asaxayaa. labadaa kala zinaystay ee aynan uur zina lahayn in guurku isu qabanayo qaybo saxaabada ka mida qaba iyo taabiciinta, waana madhab imaamu thawri, shaafici, waana sida uu rajaxayo alimaam ibnu lmundir calayhim raxma jamiican. bimacnaa way isguursan. weydiisay waxay leedahay assalaamu calaykum sheekh maxamed, su-aasheeda waxaa weeyaan sheikh nin ayaan isqabnay, waxaan u dhalay 3 carruur ah, kadibna waan kala tagnay oo mid kale ayaan guursaday. haddana kii hore ayaan la galmooday asagoo kii dambe iqabo. marka muxuu yahay xukunkayga sheekhow? ii jawaab. xukumkaagu adigu waad garanaysaa, maxaa naga weydiinay? islaan gogol dhaaftay baa tahay oo gogashii ninkeeda wasakhaysay oo ilaahay dembi ka gashay. sidaas daraaddeed toobadkeen oo ilaahay u toobadkeen, ilaahay dembi dhaaf weydiiso, waxaad samaysayna ka toobadkeen. dembi aada u culus weeye. waxaa kala duwan haweenay aan nin lahayn oo bannaanka ka zinaysatay. fadlan isdhageysano. haweenay aan nin lahayn oo xumaan ku dhacday iyo haweenay nin leh oo guri leh
oo iyadoo nin qabo xumaan samaysay way kala duwan yihiin. ilaahay agtiisa laba dembi oo kale oo zinadaas ii kala weyn. haddana waxaa ka sii weyn markay zinadu dhacdo dariska markay ku dhacdo way ka sii culus tahay oo ninka dariska la xaaskiisa uu faraxumeeyo ama muxuu ahaayey dariska dhexdiisa ay ka dhexdhacdo way ka sii weyn tahay sida nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam. dambigu waa culus ee aad gashay laakiin ilaahay la imo wallahu a'lam. gabadh baa waxay tiri oo iyaga u tagtay waxaan wada soconnay wiil kadib waxa ina dhexmaray gogol dhaaf zino waxaan hadda ogaaday inaan leeyahay uur 10 cisho ah. wiilkii wuxuu igu yiri aan isxalaashano maadaama waxay leedahay gabadhani maadaama ilmahani caloosha galay ay ku galeen si khalad ah suuragal ma tahay inaan iska soo xaaqo maadaama ay yihiin 10 cisho oo kaliya ilaahina aan uga toobad keeno mana rabo inay caloosheeda ku jiraan ilmo zina ah. haddii aan rabno inaan hadda isxalaashanana haddii aan rabno inaan hadda si xalaal ah isu guursanno ma isu guursan karnaa? jazakallahu khayran. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب يسر ولا تعسر. سؤاشاس waxay tilmaamaysaa runtii natiijada xun ee khalaad ee aakhariya adduunba qabsanaysa ruuxa ku fududaada zinada ceeb adduunka ah iyo aakharo laga yaabo in loo ciqaabo. saas daraaddeed in aad looga fogaado zinada iyo asbaabta keenaysa ayay darsi u tahay oon ka faa'iidaysanayna. qodobka labaad ilmuhu haddii uu uurka galo oo xayawaanka manida la socda iyo ukunta hooyo ay isgaadhaan oo isla falgalaan inaan la soo ridi karin marxaladuu dooni ha joogo bilow ha ahaado dhexda ha maro nafta ha lagu afuufo inaan la soo ridi karin marxalana ayaa wuxuu yahay madhabka jumhuur ahlilcilmi ama culimmada badankood ay qabaan. maalikiyada xanafiyada qaar ka mida shaaficiyada a'immadooda rag ka mida maraya sida alimaam alghazali ibn xajar alhaytami alimaam alciz ibn cabdisalaam iyo xanaabilada a'immadooda qaar ka midana saasay rajaxayaan sida alimaam ibn rajab ibn اljawsi sheekh islaam ibnu taymiya waana madhabka ahlu daahirka ama daahiriyada bimacnaa xataa 40 beri inta ka horaysa 10 beriya u horaysa wakhtiguu doonay ha ahaadee inaan la soo ridi karin ayay culimmadaasi qabaan waana sida saxdaa wey. waxaa kaloo sidaa qaba hay-atu kibaar alculamaa mamlaka alcarabiya sacuudiya culimmada sacuudiga waxaana adilada loo daliishado intaan arkay iila fiican xadiidka fii saxiixi muslim ku yaalla nebiga sal alla alay wasalam waxaa la weydiiyey casligu waa in biyuhuba intaynan gaadhin hooyada minkeeda in xubinka taranka la soo saaro bannaanka biyaha lagu daadiyo. taasaa nabiga la weydiiyey sal alla alay wasalam isagoo ruuxu markaa ka cararaya inuu ilmuhu uur galo. nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi dalika alwa'du alkhafi waa xabaal nololin qarsoon yacni waa ilmo la dilay si qarsoodi ah tiyoo yaro qarsoon waaye. ayib haddii biyihii oon weli ukunta hooye la falgelin bannaanka in lagu daadiyo uu nebigu ku tilmaamay sal alla alay wasalam inay tahay xabaal nololin qarsoon biyihii oo ukuntii la falgalay oo abuurkii bilowday soo rididdiisa way ka sii xag jirtaa maxaa yeele markaa hore ismaba gaadhinba waa biyo keligood. arrintaasi marka waxay tilmaamaysaa aadamuhu midda kale dhakhaatiirtu waxay ihbaatinayaan oo isla ogol yihiin
kulanka biyaha iyo ukuntu haddiiba usbuuc ka soo wareego jaa waa bilowday markaasba samaysankii waa bilowday laakiin waa qarsoonye saas daraaddeed sida raajixa xoogga badan waxa weeyaan inaan la soo ridi karin ilmaha uurka ku jira maraaxisha ka mida ama bilow ha ahaado ama dhexda ama ay marxalo min maraaxil saasaa xoog badan taa waa taas saas daraaddeed ruuxa zinada ku dhacay sida gabadhaas oo kale oo ilmo uurkeeda u galay in haddana lagu daro in la dilo la soo rido waa dembi haddana dembi kale lagu saxayo saas daraaddeed arrintaasi ma bannaana kow su-aasha waxaa ka mid a iyadoo uur leh oo ilmihii uurkeeda ku jiro ma la guurin karaa oo ninkii ma isguursan karaanoo siday soomaalidu tidhaahdo ma la ysku ceeb asturi karaa taana iyadana nikaaxaasi inuusan asaxaynin ilaa ay uurka zinadaa umusho waa madhabka imaam maalik thawri isxaaq ibnu rahwiya abu yuusuf alimaamu alawsaaci culimmadaasi waxay qabaan haweenta uurka zinada ah leh ee xambaarsan ilaa ay umusho inaan la guurin karin laa kii ka zinaystay inaan loo guurin karin walaa ku kale inaan loo guurin karin iyadana waa sida xooga badan waase masale khilaafiya oo imaamu shaafici iyo culimaa qabtay in guurku uu guntamayo taana waa midda amaa markay umusho kadib oo ilmuhu bannaanka yimaado ama iskiiba u dhinto oo laga yaabo inuuba uurka ku dhinto markii caloosheedu bannaanaato kadib ma isguursan karaan jawaabtu waa haa cinda aljumhuur guurkoodu waa asaxayaa labadaa kala zinaystay ee aynan uur zina lahayn in guurku isu qabanayo qaybo saxaabada ka mida qaba iyo taabiciinta waana madhab imaamu thawri shaafici waana sida uu rajaxayo alimaam ibnu mundir calayhim raxma jamiican bimacnaa way isguursan